imika waxa weeyaan waxaa lagu geynayaa maxkamadda ciidanka qaranka maadaama ood ahayd officer ka tirsan ciidanka fal aan munaasib ahaynna aad ku kacday halka ayaa lagu geynayaa dembiilayaasha dhalinyarta ee waalidiintiin dileen waxbaba dhaantid adiguna waxaa kugu maqan dhalinyaro fara badan baa kugu maqan halo madaxweyne shaqadii si fiican ayaa lagu guulaysanay ninkii inantii hooda la odhanayay ee ciidankeena ka dhex shaqaynaysayna waa qabanay komishankii baan dhignay anigii officer cabdale hawshu si fiican ula socotaa good haye madaxweyne haye no walaal Israel telefoonkaaga waan soo garaacay badan waanan maqlay in ay ciidanku dileen walaasha marka in badan telefoonkaaga waan soo garaacay nabad qabo weeyay kadib waxaan doonay inaan xaafada aan kugu yimaado laakiin waxaan wali garan lahayn masiibadan xageedii ka timid iyo xagee ka socoto walaal maxaa dhacay Israa aad waxay u sheegay wuxuu jiray shay Israel xilli la ooyay ma joogtid inaad ooydana ma waxaan adduunka way ka dhacaan markaasi imigaana waxaan ahay inaan ku jecelahay haddana ku jecelana jeelka kaama soo saareen jecela maaday soo daayay ana soo daayay anigana inta soo dadaala maalintii aan kula soo hadlay aan kugu lahaa hay soo garaacna ciidanka ayay igu daba jiray dhageysanay Israel soo garaac waan maxaa dhacayna ku soo qaraacido kadib waxaan doonay inaan jeelka ka soo daayo lawyer-ka ugu fiican Soomaaliland baan ku dalbay markaasi kadib waxa igu codsaday inaan lacag siiyo lacagtaas soo gaaraysa $80,000 oo lacag walaashii waan horta waad maadsantahay maadaama aad soo disay adiga darteed dibadda u joogay horta horeba waad ogeedo waalidkay baa la dilay waxa lagu xigsiiyay walaalkay haddana ka sii daran walaashay baa lagu sii xigsiiyay mar jacaylku uu jiraayo waa la isjeclaan karaa maadaama aad samaysay waxa soo dhanba jacaylkayga imagana hal baan ku dirsanaya ma ii samaynaysaa waayo inta iyanka badan baan ku sameeyay maxaa ku qabtaa waxaan doonayaa inaad ii qabato dhalinyaradii dilay waalidkay oo asaan ku maqlay ka soo baxsaday ciidanka inaad ii soo qabato ma inta soo kaliyaata dhalinyarada baxsaday ana daba gelaya أنا هلك جوجتك وكيني كور لاو على حبل هاسكي والله في عندي ديمة كم في عالم هايسا ما شاء الله والله هي واحد زوني إلي كلنا هه مركز
waad ogtahay inaan ciidankan raadinayo aniga oo la garanaya mogtay haye marka aduu muqaam iyo wax soo xidho halkii waxaa joogaa bariishka hoostiisa iyo kaal haye waay okay masuuliya waay war waxaan ku niyo Axmedow saaxiibsigi dawad ogtahay niyo iyo numberanta aynu isticmaal jirnay laga soo tixraaci jiray waynu bedelnayo shirkad private mobilada ka shanay oo durba waanagi dadkii gargaraacaya sax marka maanta waxaan isleeyahay intii aad asxaabta aan yarahayn xiriirka naga dhaxeeyay u tago insha Allah saaxiib sida igu hadii la qabtana waad oo numberkaygaas aad weydano waa la qabtay saaxiib hadii kale waan soo noqonayaa sida igu numberkana waa number private oo cidna ma garanaysa ciidanku marka hore waxaan soo tixraaci jiray numberkii kale faashi dawladda ha warniyo waxakeed maalin baan yaabayun qof aan garaacmo laga soo tixraaciniyo sax marka insha Allah saaxiib halkaas aan tagayaa ma garanaysaa war insha Allah saaxiib laguma qabanayo insha Allah wala qabanayaa bismillah qaraaco saaxiib saaxiib war ordi ama waalad xagana badanta xaqii ha iska waqtigaaga niyo waxaan ku salaamaya saaxiib way saaxiib waan ku soo noqon insha Allah soo garaaci adigii baa de wad soo habsaantay soo fadhiiso inna lillahi wa inna soo fadhiiso aan in badan ban xagan fadhiyo ma wad soo raagtay ya النيو لا لسه أنا عرّيم كوان قبل قصص النقضيو تعبوا حي قصي درا أذيك ما كويس كور يا هذا ليه وين حياتك؟ نور وريا أردو صاحب هالكي جامعة أدمس منك تاجين بلني وده خالي هالكي جامعة أدمس كوسوجي يا الله أني ما أنتي سوي كيسري تسي ما هاي نيو راح نتوقع بتسونيو هلو السلام عليكم هاتلي waxaan arkay inamadii maalintii sawirradooda ay tusaysay mid ka mid aan arkay taliye haa waxaan joogaa xaafadaha jigjiga yar haa gaar ahaan jaamacadda admas haa taliye halkaasaan jooga haa hay taliye hay فكين سو كنت لي دبس عني كانوا قارسيني لكن وانا سيق نخساو قبل بادية
وانك يمين وكاتري وكاتري انا سوقتي صح وسيدة سيدة وان ما سنتين نظرون ما سنت لا إله إلا نظرون ما سنت يا دود ما سنتين روح كوري عسكرت الأمر دولي قال عسكر هو هي وقرأت يقول أنا قعدت تكون شفتوك بعدين وان ما سنت إسرائيل inankii wiilkii waan soo badbaadiyay marka waxa kugu keenaya halkii aan isla garanay kugu keenay ya maxaa tiri ooyadii geynaysa marka waa bal halkaa jooji waariyahay halkaa jooji halkaa joogo waan kaa tagay waarisiita المصطفى انت سلو 20 سنه قوسي سدابل waxay doonaysaa weydiinay way السلام عليكم وعليكم السلام waxaan ka soconaa TV-ga F26 TV taliya waxaan kugu imaanay inaan dhowr su'aalood ku weydiino soo daaway su'aashii ugu horeysa waxaad hayseen dhalinyaro aad u fara badan ayaad meel ku hayseen dhalinyaradii badankoodii way dhinteen ma istiraadaan arrinka wad ku fashilmateen horta marka hore arrinkaad sheegtay waa been ciidanku kuma fashilmin hawshii ku jiraan hawsha marka ciidanku ku jiraana in ay dadweynaha iyo wariyaasha iyo waxaan ay dhex galaan waa khalad hawshii waan wadnaa aan ku dhex jirnaa insha Allah khayr baan rajaynaynaa inaan ugu dhamaato haye su'aashida labaad imise dhalinyaro ayaa ku dhimatay meesha su'aasha aad weydiisay hadaan kaga jawaabo horta mar walba idinka saxaafadda markaad tihiin maaha inaad eegtaan wixii xumaada iyo wixii la dilay laakiin waa inaad eegtaan ciidanku waxay qabteen oo aad sheegtaan xumaanta mar walba dhinaca xumaanta una ka eegina waxaad ka eegtaan xagga wanaagsan imka shirkadii yaro beelafadi haddii ay wax sheegto ay wax xumayso kama hadlaysaan iyagu lacag way dhiibiyaan laakiin dawladdii lacag kama helaysaan waxaad doonaysaan inaad maxay aad war xun ka sheegtaan si fiican mar walba ugu warrama taliya ma kula tahay inaad ku fashilmateen xukuumadda xilka aad hayseen si goormad iska casilaysaan waxa weeyaan xilkii aan maxay u haynay ummadda sidii maan ugu haynaa waxaan ku fashilmanay ma jiraan waxaan ku fashilanay ma jirto hawshaydana waan sii wadanaynaa ilaa intaan guusha ka gaadhayno ee aanu dhalinyartaan maxkamadda ka keenayno qofka dadkii waxaan dilayayna aanu ka soo afjarayno halkaa wareysiga inuu joojin maasantay xaggaad naga daawanaysaan waa F26 TV xarunta ciidanka أسمع ها والله يور وفي عنها خير والله وفي الحمد لله والله حبيبي دي حقي وركيلي نو قاسي هل كنا معان بك أصلا سمع دي وارلس كنا في عم وشقينا هذا الله هوا ربع حواري ولا جاي والله ماشي بسيطة كلنا وارلس كلي نقول شيء كلنا سلعة وكرستانو ديجيس تبع أنا بري نو قاتي كوي كلنا ما قررنا نهار قدام بيه ودني قبل ودني قبل نفس الفكرة عبد الله عطلي يور تلي هولو si fiican bay u marayaan dhalinyartii maxay waan ka kaxiyay meeshi gurigii waan ka kaxiyay gurigii kala geeyay way nabad qabaan ninkii waashmaankiina wali uu xidhay oo xubuu sheegilay sidoo kale shalay tolay waxa noo timid gabadh wariye ah oo maalmaha muruq soo noqonaysay oo wareysi doonaysay inay maxay naga qaato wareyskiina waan siiyay adiga ka war xaalado halkay marayaan hawshaadii shalay tole markii qolada wariyaasha warbixinta siinaysay odaygii la soo hadlay guri mid ka mid ah dhalinyartii magaalada lagu arkay waxaan isku daynay ninkii dhalinyartii inaanu qabanno sax
waxaan ilaa imika la yaabanahay qof baa badbaadiyey oo waxa weeyaan sidaan isku eryeynayni gaadha ku qaaday qofkaas markaa ayuu noqon karaa talow gaadhiga mise lambarkiisa ma haytay mise ma garanaysa lambarkiisa gaadhiga waxaan u haystay gaadhina ag maraya dabeetana siduu noo ag marayay unbaa daaqadii mar keliya tala furo gaadhigu uu ku booday ya سيدايا والله ما شويك إندا يفور إندا هل كان صبح صدق كذا يقدر يقفر حدا وليا يجوا وليا وصلنا جوا بعض المسلمين يتولمسا الله يقفر الله الماشي يقفر ماشي مانع ماشي مانع عند شوي يقفر ماشي يقفر والله يا سوق الماشي وايو والله يا ماشي كانت وايو والله لا امشي الطفل صوبه ومشى وايد وايد قفله شغلي سمع لي وايد سيدة محل قايسة nin kaana si xaatuka kuma noolo محل قايسة adiga qofkaana si xun adduunka kuma noola وانا قلت لها قعنتي انا تصوصنيسا مانتا هيدين اسكيكيتا انا عندما دل سكيبا يو صاحبته بدلي انا اسكيكيسي داو بناندا ميرسناي اورو سو قبساني انا اسكيكيتا انا هيدين ولا هذا انا كديني ولا سكي ولا عيدن كان يدين بدبادينيان ديني هلو war halo layna dhalinyarada amnigooda si mid kamid ah gacanteyda ku jira maxaa tiri sadu badbaadinayna aday ku taala Jaanisna waxaad haysataa 15 mir waa ya qofkiina hadlaya waa Isra Cabdi Muuse waan ku sheegay 15 mir baa Jaanis haysataa waxaana jooga guriga ku yaala cidlada halo هذا عبدله يا قرعي taliye maxay waxay soo garaacday Isra Cabdi Muuse waxay noo sheegtay mid kamid ah dhalinyartii maxay ay gacanta ku haynay ee baxsatay inay gacanta ku hayso oo 15 minute hadii ku soo gaadho 15 waxa weeyaan qofkii badbaadiyay waan maleynaya waqti ma haysano waxay yiraahdeen 15 minute hadii maxay ay ku soo gaadho weedaan waan dilaya guriga qabyada hay'ad magaalada
jaaniskii ugu dambeeyay haysataa maxaad dalbanaysaa haydilin waxba waa dalban weyda anaa kuu dooraya haddaba ساعة الموسيقى يقولوا ده يسلمك قعدت بوصل ليه هلو هلو طريق إسرائيل نصها رأسي قفك لواني على مستنا وسكان مصطفى مصطفى الكوس مين؟ نجيتي ولادي نجيتي صوتي قناع على المدرسي هلو ما يمغل إنسان waxaan u baahanahay ambalaas degdeg aan u baahanahay mid ka mid ah dhalinyartii ayaa la dilay okay si degdeg ah loo soo gaaray cabdalla dhaqso qarac telefoonkiisii telefoonkiisu xilay xaafadiisa bal qarac gabadhiisa qarac labarkeedina xilay xagee baa laga yaabaa inuu ku maqan yahay ofiskeena qarac bal xafiiskii qarac inuu joogo ترى حفيز كلام مركب حلي اوكي فدينو ما يالو ميت كنا باس قادين على السيف عبد الله سيدان ارن ما الا ما تولن تمينو وين مسكلا قايبنا ادو waxaad tiraysaa jiibki waan ku soo taagay jiibki joogo ana waxaad tiriyaa maqaaxiga fateeriga nishaa kacbin سوي تلي شغلنا